السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسسو نقد وناكسن ومركل أي برنامج كان الرادقات وحين وجوغي بلان يا أساسي سيدا الله أساسي هدف كالغالها محوها على كيوغوه ريي يا بلان سراطو نوعيسو محوها هدبا هذا إنه هلكا كسي عن بقادنو انت أنا برنامج كوغودا قلين وحان وحير إذن حسوسين إياه إنا يهيد كون يستقال بغل sagaashan iyo kowdii xilligii dawladii ummadda Soomaaliyeed ay meesha ka baxday waa xilliga hoog iyo haantoolayda laga dhaxlay waa xilliga burburka barakaca iyo baabaa aan la ilaawin ummadda ku reebay haddaba waxaa jiray jamhado la dagaalamay dawladdaas Maxamed Siyaad waxaa ugu daaweyneyd jamhadda SSDF kana soo jeeday dhul ahaan dhulka hadda Puntland loo yaqaan haddaynu sii gudagalnay aan sii qeexo waa jamhadda ku abtirsan jirtay beesha Majeerteen waana jamhaddii ugu horeysay oo dawladda Maxamed Siyaad dagaal ku qaatay sidoo kale markuu burburkaasi dhacay waxaa jiray jamhado iyaguna samaysmay dhulka aynu ka sheekaynayno jamhadaha ka samaysmay waxaa ka mid ahaa SNDU oo ay lahaayeen beelaha sanado daarood iyo Yuusuf daarood ama leelkaso iyo awrtable jamhadda waxaa gudoomiye ka ahaa Cali Ismaaciil Cabdigiir waxaa iyana jiray jamhaddii USB waa jamhaddii waqooyiga Puntland ka hana qaatay waana jamhaddii dhulbahante iyo warsangeli ay lahaayeen haddaba saddexda jamhadood oo dhulka ka jira ayaa Cabdullaahi la soo daayay waayihii la soo daayay Cabdullaahi ba ee xabsigii Itoobiya oo ka soo baxayba waxaa dhacay dagaal taariikhi ah waa dagaalkii kooxadiimeedka ahaa ee wadaadkii Xasan Daahir Uways uu hogaaminayay Puntland dagaal waxaa la kula galay kooxdiimeedka saddexda jamhadood waana xilliga isfahanka uu ka dhashay saddexda jamhadood waa xilliga ay subahaysteen isu garabsadeen inay ka galroonaadaan kooxadiimeedkaas waana xilliga guusha Ilaahay uu dhaxalsiiyay waana xilliga ay gacanta u soo gashay saddexda jamhadood haddaba faq ayaga u dhaxeeyay ayaa waxa ka soo baxay inay maamul sameeyaan maamulkaas ayaa waxa looga gol lahaa in lagu baadi goobo dawlad ummadda Soomaaliyeed mar kale oo hana qaata waa tii faqii jamhadaha uu gaaray dadkii deegaanka oqaashi waxgaradkii dhalinyaradii ganacsatadii iyo haweenkiiba waxa arintaasi aad loogu farxay ka soo yeertay jamhadaha haddaba kulamo hooso jamhadahaasi dhex maray kadib waxaa loo ballamay magaalada Garowe in la isugu yimaado shirkii koobaad iyo labaad wuxuu dhex maray madaxdii jamhadaha iyo ururo aan dawli ahayn ee ka socday bulshada haddaba xilliga kadib waxaa loo gudbiyay odayaashii uqaasha ahaa iyo waxgaradka ee ka soo jeeday deegaanadaas haddaba waxaa si buuxda la isugu yimid 1997 bishii sagaalaad magaalada Garowe waxaa yimid odayaal dhaqameedyadii ka socday beelaha deegaanadaas iyo jamhadihii nimanka horjoogayaasha u ahaa haddaba shirar socday muddo 3 bilood ayaa 3 bilood gudahood waxaa lagu kala kacay 3 jeer waxayna ka imaanaysay mar walba cabashada hab qaybsiga nooca wax loo qaybsanayo iyo awood qaybsiga baarlamaankii ugu horeeyay ee miiska saarnaa cidda ugu badan ee shirarka ka kacaysay waxay ahayd jamhaddii USB ee ka soo jeeday waqooyiga Puntland ama ka soo jeeday Sool Sanaag iyo Cayn dhulka la yiraahdo iyo waliba bariga qayb ka mid ah waxaana hardan kala dhaxeeyay jamhaddii SSDF ee beesha Majeerteen Cabdullaahi Yuusufna uu hoggaanka u ahaa waxaa mar walba garwadeen ka ahaa jamhaddii SNDU madaxdeedii oo doonayay in meeshaas uu shirka ka dhacay noqdo mid miro dhala waxaan mararka qaar iraahdaa waxay islahaayeen aad ku baadi goobtaan dawlad Soomaaliyeed marna waxaan iraahdaa waxaysan miiska la imaan ajanda cad
sida ragga meesha isugu hayay ay ajandayaal u lahaayeen mustaqbal dheer leh. waxaan 2010kii magaalada Nairobi hoteelka Chester House kula kulmay Maxamed Cabdi Yuusuf oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii SNDU. haddaba wuxuu ii sheegay in inta ay shirka joogeen 3 jeer xildhibaano wax qayb ayagoo ay u heleen ay ku maslaxeen ururadii ku hardamayay ama jamhadihii dhigood ahaa ee ku hardamayay wax qaybsigii miiska saarnaa. doqonnimo iyo dadnimo kay rabtaba ha noqotee waxaa lagu heshiiyey 66 xildhibaan oo soo doorta madaxweynaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. waa maalinta dulmiga qaangaarka ahi uu ka dhacay halkaas, waana maalinta qoloba qolo ay dulmiday, waa maalinta SSDF iyo USB ay dulmiyeen SNDU, waana maalinta ay SSDF isii dulmiday, waana maalinta ay USB ayana isdulmiday. dulmiba dulmi ka darane waa maalinta ay SNDU ayana isdulmisay oo leelkase uu dulmiyey awrtable, taasoo ka dhigan wax qaybtii awrtable Puntland ay awood qaybsi ahaan uga heleen inuu leelkase ayana ka marooqsaday. waa maalinta ay jamhadiba jamhadii ay jamhadda ku ahayd hoos u sii dulmisay, waana maalinta kor la isku soo dulmiyey. maantay intaa haynoo joogo barnaamijkeennii qaybta 2. waxaanu isugu imaanaynaa qaybta 3 oo ka bilaabanaysa maxaa dhacay markii la soo xulay xildhibaanadii 66 ahaa ee lagu heshiiyey, iyo goorta ay baraarugtay SNDU waxa ku dhacay inay ahayd ciyowgii waa ka baryay. waa bilig hurfoo idin leh alla ka sokow. waxaan u mahadcelinayaa injineer Cabdinaasir Faarax Xarago iyo Firin Media oo gacan weyn ka geystay habeynta xagga sawirada. waa inoo mar kale, sidaas iyo nabadgelyo.